waxaa dhacday markii ay is arooseen oo everything uu dhamaaday oo maaragtay maxaa la dhahay reerkii lagu baraaray ay noqdeen oo ninkaana shaqadiisii uu wato oo maaragtay maxaa la dhahay maslax sugde uu ka shaqeynayo maaragtay maxaa la dhahay shaqadiisii ayaa waxay isku afgarteen in ay ayada baxdo maslax sugde aboowadi sug waxay in ay maaragtay maxaa la dhahay iyada ay baxdo waxaa la aruuriyay lacag ninkan mushaarkiisii ah oo maaragtay maxaa la dhahay gaariga uu waday gaari oo wuxuu waday ee carabta leedahay oo gaariga geelka lagu raacay ah ma fahantay oo lacag fiican uu ku qaadanayay waxaa dhacday markii la aruuriyay lacagtii gabadhii ayaa boos loogu gaday waa sida ay ii soo warisay hooyadiis macaan ma aha inaa maslax yacni wuxuu sheegay aan ka wareysanayno aniga ma joogin meesha laakiin waa sida ay maamada noo sheegtay lacagtii la aruuriyay waxaa loogu gaday boos Sucaad booskaas wuxuu ahaa Canada waa ay ku baxday waxay ballan qaaday oo tiri aniga iigad booskan ana ku soo dacwoonayo sifa noloshan aan uga baxno booskii ayaa loo gaday wayna baxday Sucaad wiilkan maalmaha kamid ah ayaa marka asagoo gaarigi wado ayaa la qabtay waana la soo tarxiilay waa la soo celiyay Sucaad wiilkan booskii ay u xareysay waxbay xareysay baa liir wixii ay u xareysay waxay tiri waxaan ku bedelay in adeerkay wiil aan ilma adeernaha ayaan ku bedelay maslaxow xaafadda igu salaan warqadaydiina waan rabaa aabihii aadan oo loo yaqaan aadan garma qaate reer wajeer oo dhan way yaqaanaan Soomaaliyana waa laga yaqaanay oo wuxuu ahaa nin dawladda u shaqeyn jiray oo sarkaala iga fur bay ku tiri adeer ha ifuro wiilkan adeerna wuxuu yiri Allah u raxmee anigu idin ma kala furayee waa inaad idinka maaragtay maxaa la dhahay afkiisa anigu ma ka furayo dhahay ma fahantay ninkan uu is adkeeyay wuxuu dhahay kuma furayo halkaas markay sheekada marayso oo ay gabadhii go'aan ku gaadhay booska inay qof kala geliso oo ninkan maaragtay maxaa la dhahay ay yacni tiraahday xaafadda igu salaan oo booskii ay qof kala gelisay ayuu wiilkan xanuunkiisa bilaabmay museegii wuu xanuunsanaa wuu dhintay xaaladii way adkaatay wiilkan wuu isla hadlay meeshii waa laga soo tarxiilay lacagtii uu shaqeynaa iyadaa ku baxday booskiina qof kale ku bixisay waxaa dhacday marka wiilkan inuu xanuunsado oo isla hadlo hooyadiisna waxay ahayd qof waayeel ah meelahaas bay u maaragtay maxaa la dhahayaanta oo qaxootigaas yacni Falastiin meel u jirta 2 sac bay joogtaa hooyadeed waddanka Falastiin oo jugta Falastiin markay dhacaysa laga maqlay joogtaa magaceed meesha Jordan meel la dhahay joogtaa waxaa dhacday marka wiilkan in maaragtay uu isla hadlay wajeer buu joogay marna wuxuu aadayay Dhobley marna meelahan uu soconayay markuu xanuunsaday aabihiisna uu dhintay hooyadiisna ay tagtay wiilkii walaalkiisa ahaa oo labeeyay 2 wiil iyo 1 gabar kaliya maamada ay ilmo ka dhashay wiilkiina uu xanuunsan yahay labadooda isla xanuunsan yihiin wax eela oo maaragtay garab siiyana ma aysan helin wax Soomaaliya oo garab siiyay ma aysan helin waxaa dhacday meesha la dhaho wajeer dadkan meesha ku jiro way garanayaan wajeer iyo meesha hadda aan caawa joogno oo ifo la dhaho ifo refugee camp yacni inta kiiloomitir isku jiraan dadku way garanayaan meeshaas ilaa ay ifo lagu ku imaado ninkan ma fahantay qof kasta wuu dakhraayay qof kasta wax buu ku dhisanayay yacni dee qofkaas iska maaragtay sidii video ugu horeeyay aan kasoo duubay sidii uu ahaa waa u jeedeen ma fahantay saasuu ahaa meeshaan lagu ku imaaday kaara loo gooyay labadoodaba oo kaarka qaxootiga sidii Cabdulqaadir oo walaalkiisa oo labadoodaba ay xanuunsan yihiin meel aysan lu ku marin malaha meel ayna soconin malaha ilaa Kismaayo ilaa iyo maaragtay maxaa la dhahay Dhobley ilaa iyo qaxootiyaasha marka sidii ayay talo fara kaga haaday waxaa kale oo dhacday oo aan rabaa inaan meeshaan ka sheego gabadha la dhaho Sucaad way ila soo xiriirtay aniga maanta waxay igu tiraahday message bay ii soo qortay waxaan ku yiri walaal macaan aniga waa la dulmaaya ay wax noocaas waxaan ku yiraahday lambarkayga qaado aan isweydiisana aan ku dhageysanay sida hooyo aan u dhageysanay meesha qisada ay ka dhacaysay iyo lacagta aad ku baxday yacni Sucaad waxaa la sheegay in meeshaas ay joogtay shaqeynayninna wax shaqo aysan haynin lacagna way ku baxday marka inaan yacni su'aalo weydiiyaan rabo oo walaal macaan yacni maaragtay maxaa la dhahay goormaa kala dhamaateen suuq ugu furay ninkan yacni maskaxdiisa waa lagu darsamay museegii uu dhintay Allah u raxmo uu diiday inuu ka furo see yacni weygeed u martay waxyaalo badan inaan weydiiyo waan rabay mana raba ayada laftirkeeda in lagu khaldamo wada waa gabar Soomaaliyeed laakiin waxay igu tiri Sucaad maya kuma ku siinayo nambarkayga Zahra waa iduubaysaa igu tiraahdo ma rabi waa iduubaysaa saar UK ma kula hadlaayay igu tiri because waxaan rabaa ayadana codkeeda bal in la dhageysto xataa
waxay i dhahday marka maxaa la dhahaye wax dad uu leeyahay malaha haddaa dad u noqonaysin camal waa caawinaysin caawiya aniga inaan waxba yeelin isagaaba afkiisa ugu sheegaayo tiri intaasaan sucaadna oo qoraal ah aan isdhaafsanay aniga ayada hadda iyo dan wiilkan waa wiil Soomaaliyeed waa wiil dhalinyaro ah waa wiil qurux badan Soomaali Maxamed dadka meeshaan saaran waxaan ka codsanaynaa wiilkan weliba wax yar u baahan yahay haddii loo geeyo ninkan loo Dr. Xabeeb waxaa laga yaabaa in uu caafimaado oo ilaahayna aanu barino in aad garab naga siisaan oo wiilkan waa wiil Soomaaliyeed oo walaalkiin ah in maaragtay maxaa la dhahaa garab istaagtaanoo aad wixii aad ku tiri kartiin caawa aad ku tartaan dhobley wax yar bay noo jirtaa 3 saac ma u soconaynaa 2 hours u soconaynaa hadda meesha aan joogno haddaan geyno waxaana ku yaal Dr. Xabeeb marka inaad nacaawisaan oo hal sano aan ka shubno maaragtay maxaa la dhahaa qofkii dee maaragtay faalo qaadi kara ama wax u qaban kara 100 qof baa meeshaan ku jirto Soomaaliyeed oo walaalaha ama ehel la asaga ama intaani asaga isu jiro oo giftirka iyo lacagaha saa u daadiya marka walaalayaal wiilkan soo garab istaaga okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa kale weydiin ma santaa waa bilaabanayna caawinaada waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markay aadayeen jabra muxsin soo bedel muxsin ya hay markay Sacuudi aadayeen kala madaxweyne xasayra no ya kama muxsin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markay Sacuudi Carabi aadayeen wiilkan iyo hooyadiis iyo walaashiis iyo mataqaanaa ay ahaayeen wiilkan iyo hooyadiis iyo walaashiis ay ahaayeen iyo wiilka kale Cabdulqaadir labada wiil iyo gabadha un bay dhashay maamada okay Sacuudi ku noolaan Sacuudi Sacuudi ka shaqeysan jireen Soomaha yaa baayo Sacuudiga joogeen way ka shaqeysanayeen okay Sacuudiga joogeen ay ka shaqeysanayeen okay waxa ku weydiinaa gabadha wiilka mu furay مفرطة والله هذا كست أبي أقول لك أنا يسافر يرو دك دك يسافر يرو دك دك أنا هرت نك عن حروسية ما فهمتي وح عن كقرينا ملعا لكن هذا وحي إيش أكتي إن الله أنه حرستي أدير عادنا أبيس أحمركي ونولا قبل وقعد ستي إن أفريض وجوكت كندا وأمرك ويلك كلا يربتين قاعد سيد أي معناه ما مدي إيش أكتي مزيجنا ويرى أنا إذا ما كلا فريو نين كنا مركو عادي جاه ويسأت كيو ويركو ما فريو هل كاسا ورد بيسي لكن هذا عاو محل مصلح بعود عليه ولا ما فرطي معناه ولا شيء ساعات ما دام أنفري هل فرانكفورت هل فرانكفورت هل دلقوا أنا مسيد يوسين قبل ما قعدت نقول يا جبرو سعاد ما يا قبل وحالتها سارو أتشك أنا صوصي سارو سؤالها بالعمل سارو قريقانا كلها لا أتشك هذا سي سارو وما سنتا ولا سيدا نكا سو غرب استاغتي arinta ninkan waxay gaartay umada Soomaaliyeed dhamaanteed marka waxaan rabnaa inaan wax bayaansan inaan wax si bayaansan inaan wax faahno sanadka ay ahayd gabadhu ay ka soo tagaysay halka iyo Carabaha miyaa Sacuudi Carabiga miyaa tirimeesha oo ka soo dhoofaysay gabadha Dubai ka baxdaa la yiraahdo Sacuudi Carabiga ay deganayeen okay waa goorma waa xilma sanadkaas aniga ma garanayo laakiin I don't know haddaan call heli karna maamada maslax telefonkii hamar maamada waxa haddaan call maamada aan heli karno where's my phone kayga soo qaba kayga qabanaysa suuqana haya WhatsApp ka afurtixirho maamada weydiinayna sanadka ahayd iyo waxa soo waxa isku dayaa in si fiican in loo maqlaayo umaleynaa maamada codkeeda ana ayadan ku kalsoonaa inay wax walba maaragtay way hay muxsin ama gareeqaan waxa sameeysan maamada midkiin ha wareysto ما عادوا ووريسك كرتين يعني وحتى مشغولسنا عليه وحيرا مشغولسنا رجع كله أيوة محسن sanadkii iyo waxa soo dhan ay ku weydiiyaan marka codkaagana kor u qaad insha Allah ya maamadaas waxaas midiyo waa waxaas iska dhaaf dhib malaha wax qofku meeshii la rabaa la saartaa iyo sawirkiisa adii hadda wiilasha kula hadlaayeen ee dadka wixii lagu weydiiyo uga jawaab iska dhaaf dadkaas hooyo macaan haye waaye hadal hooyo salaamu calaykum assalaamu calaykum calaykum salaam maama maama soo dhawow aada u mahadsantahay hooyo waxaan rabnaa inaan su'aal yar ku weydiino adoo raalli
ما شاء الله تبارك الله ودوها هوي hooyo waxaan rabaa xagga abaayo waxyaalo badan ay mataqaanaa noo bayaanisay waxa u baahanaa adna isla sidoo kale inaan waxyaalo kale aan ku weydiino noo bayaaniso maslaha xilligu guursanayay iyo taariikhdu guursanayay iyo xilliga gabadha kala tageen mana sharix kartaa waraade ana hadda urdun waxaan joogaa sideed sano hadda igala sanadka cusub ma garat waa gartay xaggana waxaan joogaa xagga sacuudigana waxaan joogay na sacuudiga 15 sano maan joognay 12 sano meelaha 13 sano waay taariikhda haddaan fiiriyo صح 13 sano aan sacuudiga joognay صح waa gartay ma garat waa gartay anuu taariikhda waan hayaa waqtiga okay garat hooyo noo sharax bal qisadan wiilka intaan la eg adi iyo wiilkaada xaggee isku wayseen markii la soo tarxiilay abaayo ee noo sheegtay adi iyo wiilkaada xaggee isku wayseen carruurtaada bal noo sharax mataqaanaa noo faahfaahi bal hooyo أنا أكون صوب بلابي يا سكتت أنا أكون شاكرة أكون صوب بلابي كنتير وبالله التوفيق واسيد هربنو أكون صوب بلابي شاكرة إيد معارو أي إيد معارو وحواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيد معارو أنا أكون صوب بلابي أنا أكون صوب بلابي وحواي ويلشان أنا جوجر بانوي من سعودي أنت كإمادة سعودي كان جوجي جري wiilashaan u imaade wajaaraan ka kaxeeye waan tahriibsaday waan tahriibiye waxaan tagnay magaalada la yiraahdo Damaam magaalada Damaam aan tagnay wiilku shaqaysta maslax baabuur buu waday maasha Allah uu shaqaysta saxaro ka shaqaystay Cabdibil wadi jiray ما قرأت واقرتي وش شقيستي ويرناك باربا واقرتي وقورسدي قبر وقورسدي أبقاله طبعا بري مركا إسقبان وهرتو way kala tageen markay kala tageen haddana wuxuu guursaday gabar kale haddana oo ma xaragtay jajeela gabadha hadda Sucaad buu guursaday Sucaad markuu guursaday xooluhu ka bixiyay aabaheed iyo hooyadeed lacag loo diray uu u diray way aqal galeen ma garad way aqal galeen wax walba u sameeyay lacag wuxuu soo shaqaysanaa oo dhan iyadu wuxuu ka dhigtay sanduuq wax walba u dhiiban jiray wiilashana naagahooda inay aaminaan bay fiican uu aaminay واقرتي waxay samaysay qad bay hoos ka samaysan jirtay markii dambe waxay tiri walaalo waa noo soo dacweynaya qurubahan ma joog karno aniga ka raara warqad la iga soo wadaa oo gatay waxaan gatay leen qof iska gadaayo waan baxayaa leen baan ku soo iibinayaa واقرتي markay Canada cagaha la heshay ay telefoon soo dirto waxay tiri aniga kuma jiri sheekadaas walaalkeen keensaday maca salaama mana isoo wici kartid naaga kala wadwadataa soco idaaf aabihiisoo markaa noolaa wajeer jooge ay haddana soo qaraacday waxay tiri warqadayda ha layga siiyo wax warqad siiye ma jirin wax fure ma jirin oo goobjoog u ahaa meel cidlay kaga dhaqaaqday iyadaana saa u gashay qabri bayna gelinine meel bay kaga soo hartay marka qofka haddii xoolo ka maqan yihiin oo u tirbeelo u tacabeelo iyo xaaskina haynin xoolihiisi uu ka naxaayo shaqaysanayo saxara uu baabuurkooda kuleelahaad aragtay sacuudiga saxaruukooda oo jimca uu imaan jiray magaalo ay saa u gashay waa gartay هاي قالك معك وقرن معك سوق بتفلو وعادي كسر عدي ملا كنت أنا لقوم مغلق أنا سوق بنا هنا محا أنا سوق بنا كرناه
wadhima la ku socohoy waa caadi هاي كوسع هذا معاني ود والله مقلاي marka eeda macaaney dhibaatadaasay u geysatay rafaad bay u geysatay dhibaatay u geysatay waxa oo saa u galay wiilkaasna oo geeri nololba rafaadka u geystay waa iyada hadday qof islaam tahay waxay dhihi lahayd icafi xitaa way dhihi lahayd ma ayna soo dhihin waxay uu dhididkiisii iyo hiriqiisii oo dhan bay la carartay iyadoo weliba xeragiisa wadatay wax uu furay ma leh marka waxaan ka codsanayaa dal iyo dibaddaba dadka joogo oo walaalaheen ah oo Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed baan ahay murugsan oo caloosha ololayso beerka ololaayo habeen nuurdo maalin nuurdo lugayba ay bararay wallaahi bilaahi dhiikar baa igu dhacay aan qabi jirin wallaahi waxaan ka yaabayaa inay sokor igu dhacdaba rafaadka i haysta oo weliba qaxooti ku jiro Jordan la dhaho marka aad baan u rafaadsanay oo hin iyo muruga ay dishay beer wax dhalaanahay beerkii waa iruusha Soomaali weyn hadday imaqlayso wiilka wiil Soomaaliyeed Soomaali uu yahay haddii kor loo kacana waa nin ogaadeen ah haddii kor loo kacana waa nin Soomaali ama Soomaali oo dhan u dhaxay Soomaali weyn walaalahay waxaan ka codsanayaa ilaahay inta istagaalaysana furcad ha isu saaro dibad iyo gudahaba dadka jooga ilaahay ilmahooda inuu u xaftiyo oo ilmahooda ilaahay u xaftiyo oo ilaahay balaayada aga xijaabo oo ilaahay waxaan gareeqaan waaye horta maamadu kulli taba ninkii yarkana waxbuu ka hadlayay dabcan inkasta hadalkiisa maamada laakiin waxa weeye wiilka in la caawiyo hadda anagu maxkamad ma nihin gabadhiina sooma xiriiri karno wax jirana ilaahay baa naga og muhiimadda ugu weyn waxa weeye waxaan rabaa سوق إيه دويل بعهد لي مركو كده هذا البلد ما maamada hanoo dhamaysa inaad ku socday hooy noo dhameeyay ninka dhamaystay sugma dhamaystay ninka مو لما يستوي كوسع هذا waxaan barayaa Soomaali weyn aan u diray baaqa aan u diray wuxuu yahay aniga wadan fog baan joogaan qaxooti ku ahay waxaan ku jiraa qaxooti yaa sidaan noqona ilaahay baa og geeri iyo nolol laakiin ilaahay baa ii hay aan baa ii dilay oo baa ii dishay beerka ay lulanay lugay way xanuunayaan waan ka sii daray lugay awalba ii xanuunayay way iiga sii dareen 8 sano meesha jooga sanadka cusub baa 8 ah waxaan ka codsanayaa Soomaali weyn hooyo Soomaaliyeed baan oo waliba qaranka Soomaaliya u shaqayn jirtay bulis military baan ahaa oo qaranka Soomaaliya u shaqayn jirtay aabahoodna bulis military u ahaa waxaan ka codsanayaa dad qaranka u soo jajabaan ahaan u soo shaqaynayay waxaan ka codsanayaa hooyooyinka Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed Soomaali dhamaanteedba waxaan ku codsanayaa ilaahay inuu xaftiyo oo ilaahay balaayada ka xijaabo oo ilaahay dadka qurbaha joogo iyo dadka dibadda joogabo waxaan ka codsanayaa oon u dirayaa baaq aad u fog oo yareen aan u dirayaa inay wiilasha yaryar oo ubax soo baxay ee soo koraya wadankooda u shaqaysan lahaa waa farsamo yaqaan waa darawal wax walba yaqaanaan iyo wax la'aan baa haysa waxaan rabaa in la ii garab istaago way jirayeen xarun la iigu xareeyo haye naaga la iigu dhiso wax walba la iigu sameeyo markay bogsadaan labada wiil waa maslax aadan nuuno xaashi iyo cabdiqaadir nuuno xaashi oo halgamaa dhashay halgamaa aabahood iyo hooyadoodba dowladda Soomaaliya u shaqaynaya Maxamed Siyaad Barre waxaan rabaa in wax la iigu qabto la ii garab istaago la ii kala harin Soomaali weynay waan oynayaa maanta ani habeen hurda maalin ma hooydo oo in baa ii dishay cunto igama degto haddaan idin dhaho maad cunto ma cuna walaal biyo igama degaan cunto igama degto risq igama dego oo in baan ku jiraane
ما قرأتين وقرني هلا يقع ويلا شال يقرب استاغو وما صنت هاي thank you very much إن شاء الله حواي عاون سوق روح بنا وسمين دونا لكن إن اللافك قلان ربا لافك محل يقول اللافك إن قلان ربا لايفka waaye waxaa ka dhaxalaysid لايفka waaye content يعني موقال برا موقال muuqaalkaaga inaad soo gashid ma rabtaa حتى دد يقانا وحتاري لها ويلش موقالك ولا ياركي لها Soomaali weyn Iran kula joogaa markaa